saldhigyada booliiska ee berigaas jiray waxay ahaayeen 4 saldhig bas. 4taas saldhig waxaa la dhihi jiray midka u xageeya waxaa la dhihi jiray Orientale oo hadda la yiraahdo saldhiga bari. asagii waa dambeeyaa magaciyaa loo bedelay moogiye ma baabi'in. Stazione Orientale la dhihi jiray saldhiga bariyaa la yiraahdaa. waxaa ku xigay stazione kan la yiraahdo muxuu ahay Beyturas waa baaba'ayay meesha maxkamadda sare hadda ku dhisan tahay meeshaas ku aali jiray. Stazione Beyturas waxaa ku xigay Boodgaro oo waa midkan hadda la yiraahdo Afridoodka oo hadda jiro. Jardini mid la yiraahdo jiray oo ku aali jiray meeshaan madaxtooyadu ku dhisan tahay. qaybtan soko meesha ku dhisan tahay meeshaas ku aalo villa Somalo markaad soo dhaafto oo meeshaas ku yeel oo dhabarkaana looga dejiga jiray. haddii raadi Muqdisho dhanka laga maro saldhigaa la tegi jiray. saldhigaas meeshaas ku yeel 56 markii degmadan hodan waa beri markii la aasay oo Village Nova loo baxsho la dejiyay aaliri maadaama afisiona albaabkiisi dadka deegaanka uu noqday saldhigii ugu dhaweeyna oo ku yaal Afridoodka xoogaa amnigu waa meesha lagu dhibto aha saldhig cusub oo la yiraahdo Sarendi waxaa laga furay meeshaan iskoola bulisiya dhabarkeeda. dhabaan iskoola bulisiya markaad galayto guryaha dhankan ka soo jeego saldhig bulis oo ahay bas. sidaas markuu batay kacaanka markuu dhashay wixii dhamay waa badshi. degmo kastaba hal saldhigo u sameeyey hodan u sameeyey waa beri u sameeyey kii inta waa la raday wargeliyaa la geeyey bilaaja waa loo sameeyey degmo kastaba ilaa madiino gisigaad degmo kastaba saldhigaa loo sameeyey. isbitaalada berigaas hore jiri jiray waxay ahaayeen 3 isbitaal bis. isbitaal Martini iyo Forlanini iyo Ravo magaciisi Forlanini magaca la baxay waxa loo yaqaan Lazaretto. Ravo magac kale looma yaqaano magaca la dhihi jiray Ravo ahay kadib waxaa la wareegtay wasaaradda waxbarashada kadib wasaaradda caafimaadka oo xarunteedii ahay. laakiin berigii hore isbitaal Rava la dhihi jiray waxaa dadka alta funcionaryada oo madaxda sare iyo Talyaaniga xaasaskooda iyo dadkooda seexa jira. wuxuu ku yaalaa ex baarlamaan uu dhinacan ka saaran yahay oo kasoo horjeeda oo raasaan ugu soo jeedaa. isbitaal Lazarettana waa taqaanaa wuxuu ku yaalaa Stadio Conis markaad dhaafto ayuu ku yaalaa xaguu ka soo jeedaa dhul weyn oo wadan waa soo aad u weyn yahay. isbitaal Martinina waa mid ka hadda shaqeeyo Corionahan dartiisa u shaqeeya kaasaa shaqeeya. isbitaalkii ugu ku xigay oo la sameeyey waa Digfaar 1960kii dhismaha lagu bilaabay 61 uu dhamaaday 61kii Mercato Comune Europea dhistay. markaas 61kii iyo 62kii iyo 63kii saddexdaas sano waxaa ku shaqaysanayay Talyaaniga bas 3 sano ku shaqaysay kadib Soomaalidu ku wareejiyay. dawladda la wareegtay markii dawladda la wareegtay lacag la'aan laga dhigay. markaas hore laakiin lacag lagu seexan jiray dadka tago isbitaal lacag lagu seexdo sida hadda kuwa private ka camal isbitaal private camal u ahay kadib dawladda la wareegtay bas. kadib kacaanku markuu dhashay ayaa isbitaallo badan la sameeyey oo sida bilmathal isbitaal Banaadir isbitaalkan Madiina la leeyahay oo booliiska loogu talagalay isbitaalka xoogga la leeyahay militariga loogu talagalay qolo kastaba isbitaal inay yeelato haweenkii dhalaanka kana loogu talagalay Banaadir waxaa gacanka sameeyay